السلام عليكم ورحمة الله نبض داوديال waxaad ku soo dhawaataan warbixin aad u xiiso badan oo aynu kaga hadlayno hardan suuqeedka ama dagaal suuqeedka ka dhaxeeya bajaajta iyo sidoo kale BL-ka muqreebka ereyga BL macnihiisu waa gaadiidka dadweynaha balse magacan ayaa asal ahaan ka yimid Pubblicato della Versione oo ah erey Talyaaniya adeegsiga gaadiidka BL-ka ayaa soo bilowday waqti fog oo ku aastaysan barisamaadkii xilligaasi oo dadweynuhu ay aad u adeegsan jireen gaadiidkan waxaa soo labeyn jiray tagaasida kuwaasi oo dadweynuhu ay kireysan jireen xilliyada ay leeyihiin danaha gaarka ah waayaha iyo waqtigu waxa ay iskuraanba waxa masraxa gaadiidka Muqdisho mar qura ku soo biirtay mootada loo yaqaan bajaajta taasi oo tirahaan marka loo eego kulaba jibaarintay gawaadhidii loo yaqaanay hoomeyda oo ahaa midkii kali ahaa ee iskaga kala gooshi jiray degmooyinka kala duwan ee gobolkani Banaadir hoome ayaa hore khadka uga saartay xaajiye 50 disco iyo gawaadhi kale oo ka shaqeyn jiray daawulka dadweynaha Muqdisho ifafaalaha muuqanaya ayaa waxa uu hoga tusaaleynayaa inay dhowdahay xilligii hoomey uu magaaladan ka dabargo ilaha walow aan la saadaalin karin halka uu saldhigan doono loolanka suuqa ee ka dhaxeeya BL iyo bajaaj darawalada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ama BL-ka caasiga ama hoomeyda hadba kaad u taqaano waxa ay rajo xumo ka muujiyeen shaqada gaadiidkan inkastoo marka dhinaca kale loo fiiriyo gawaadhidani inay sii shaqeeyaan ay danta ugu weyn ugu jirto dadka danyarta ah ee aan awoodin inay si gaar ah u kireystaan bajaajta kulay aniga saameyn badan ugu yeelatay marka mustajeega bistooy markaan joogno dadku waxay leeyihiin maraba soconaysaa mise waa aniga badan afar baan nahay bajaaj baan isku darsanayna mise waa naga soconaysaa marka hadda waxay raaso weysid waxa weeye markay ka dagayaan bajaaj bay raacayaan marka bajaajka hadan diyaarleenahay aad noo saameysay maadaama hadda aad noo saameysay markii doonka la xiray shaqada BL-ka xaaladeeda hadda waa sidoo hore maaha ma fiicna fiicnaanta hore lagu waa male معناها كل أول بيل أول لعب على غاجري لكن هذا اليوم كم رأسنا مالنا اليوم كله ويا وحاب بدلي معناها شغلي بجاجك بطي بكي شعبك يا بطي بجاجك هذي أفريين مستدعيين وعاو بجاج بكريسنا يعني بجاجك حافظ ذي جينيسا ذي ألعاب وطن ألعاب تذي جينيسا لكن عاسي لام يكون دجنيه ويا صدام درول عشان $10 دورنا غاجري لكن هذا $4 $5 كبر ما قاط marka anay saameyn aad u weyn u saameysay marka dib mal hadii shacabku meesha u bataan hadii ay mootooyinku bataan aniga caasiga waa iska dhaafayna oo darowlahayn mootooyinka kaxeynayna insha Allah taala si aad u darboya BL-ka sidoo hore maaha waxa way hadda waxaan qaadna male hadda sidii dumarka kale oo dumarka kale hadda ma baracaan BL-ka mootooyinka raacaan sidii gabdhaha jaamacadaha kale iskuulaadka kale afar isku dasaan weeraan meelaha bistoojooyinka haajiray سير شام وما ما يعيق عيسى محمد عمر واكي ان بيال كان عوض عوضا باور كان نتيجه مثلا بيال اللي هي توصل بيال وضع نبكي يقول ان سيب يعني بنات سيب يعني حمرينا كشقيا ان وعي كوري ميادة وفرنت وضع الراشات نبوي انه هو انيقا ان باور كان انيقا مليين وهي كريستينيا شام بقول علي ربا هذول لا يكونون هاي كسمتاله عنشور بونو انت عليه قادا بنادر السيدان يودوا الجامعه iyo wax iskeenin wixii baarka keenay wallahi asan ma tabajaaj aniga dib weyn ugu mayso dibka weyn waxaan tahay aniga aan caawinayo shakhsi ahaan waa macnaheedu beerka inta badan waa ay la qabaan maanta waxa u daran xirnaashada wadada ee dowladda xirtay إبل واحد تيجي جنوي وتبلا إلا أيه حمرين ما جن ولا وجن وحون أذيك اليوم رسمي أكل جن فعلا هذا اليوم كيا وسكوب ما هو وا معقول وا بجاش تبي حربسها بلدها وقد شنكون يتوقع قد هذا أيه وصار صعتابة تكسي ما يمكن بس أنا رأنا صعتابة إن حتى هاي صايب عدل يا عويدي حد سلة دلوي سلة بدأ سميها ما تبغى أنا ما بدنا قناة أدرينا ما تحرمني أنا ka hor inta uusan dalku lugaha la gelin
nidaam darrada laga dhaxlay burburkii dowladii dhexe ayaa waxaa jiray nidaam ay ku shaqayn jireen gaadiidka dadweynaha. Laba qayb ayay ahaayeen gawaadhida ka shaqayn jiray degmooyinka gobolka Banaadir, kuwa ay dowladdu lahayd oo qiimo jaban lagu raaci jiray iyo kuwa si gaar ah shakhsiyaad ay u lahaayeen. Cabdullaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay waayajoogii waqtigaasi qaybta ka ahaa dadkii raaci jiray gaadiidkaasi, waxa uuna inoo sharxayaa nidaamka BL-ka dowladdu ay u hagi jirtay. keeni hore iyo mid hadda farqi weyn baa u dhaxeeya. farqiga weyn oo u dhaxeeya wuxuu yahay waagi hore kumanaad isaga raaci jirnay. hadda waxaa yimid bajaaj qadka way ka baxeen baabuurtii oo la raaci jiray. markay ka baxeen bajaajka jooga bajaajka hadda shaqaynaya $1 ugu yar waa eelgaab oo kale ama meel yar nus kilomitir waa $1 dadkuna ma awoodo kumaadkiyaa u roonay hore oo jiray waayo kaas wuxuu ahay dan yarta wax ku hagan jirta. hadda niman jeeb lahayn bajaajka ma raaci karo. BL-ku waaba ka baxab qadka waaba ka socdaa bajaajka ka saaray. waxaan kala wadaagi karaa waagi hore BL-ka meeshaan doonaan ku tagayna ma lahayn meeshaan ka laaba iyo ma lahayn wuxuuna wadada dhulkan waa iska wada furray. hadda waad ogtihiin meel kasta waa xoogay waa soo go'an tahay. BL-ka hore oo kuwan xataa ka horreeyay BL-ka hadda shaqeynaa kuwii ka horreeyay oo xilligii dowladda waxay ahaayeen qaab waxaa la helaya dowladeed oo basas dowladeed la helaya boonaad dhiibanaysa lacag kuna waxaad dhiibanaysa meesha doontaa ku tagaysa. waxaa bedelay kuwii shacabka haddana oo xilligii hogaamiye kooxeed iyaguna waxay ahaayeen lacagtaada la baxayay meesha doontaa ku fureed. waxaa bedelay waa ka tageen kuwaas haddana midba dhaxlay. marka dhibaatada jirta xilliga baabuurtina waa ku soo batay bajaajka waa ku soo batay baabuurta oo BL-kana waa ka baxay qadka. 2013 ayaa markii ugu horeysay magaalada Muqdisho lagu arkay iyadoo saxada gaadiidka hadba dhinac u heehaabaysa mootada saddexda lug leh ee magaaladan muuqaalkeedu camimay tiro badni inta ay ka qabto daraadeed. durbadiiba ma aysan daahine waxa ay khadka ka saartay gaadiidkii la oran jiray tagaasida ee dadku danaha gaarka ah u adeegsan jireen maadaama iyadu ay tahay mid ka qiimo jaban isla markaana ka degdegsiimo badan tagaasida. dhalinyaro badan ayay shaqo abuur u noqotay mootadan, kuwaasi oo hadda gudaha ku nool nolol maalmeedkooda qoys ahaaneed iyo midda magaalo joogna ka hela wadista mooto bajaajta. shaqadu waa meesheedii waa isku mid mootadii bajaajka dad walaalo ayaa wato oo isla oo Soomaali ah. shaqadan si loogu tala galo waaye degmada Xamarweyne khaasatan si amni ah oo nadiif ah ayaan ugu shaqaysanaa haddaan aan ururka mootoleyda. hadda waqtigan la joogo waxaa ku badan magaalada mootada ayaa ku badan oo saa'id 100% taasi waa ku dhowdaa BL-ka inuu qadka ka baxo 100% mootadii ayaa saa'id u badan. marba waa si lacagahaasi mar 20 baa shaqaysaa 15 baa shaqaysaa intaas waa BL-ku way ka shaqo badan yihiin meel kasta ayaa u furan mootada waa shaqaysaa laakiin BL-ka ma gudbi karo isha checkpointiga ee ka shaqeeya ciidanka federaalka ee Soomaaliya. marba waa si mar waxa la kulmaysaa isha dhibaatooyin baa la kulmaysaa safar baa loogu shaqeeyaa magaalada Muqdisho. taasi waxa keenayso isha nin baa xasuubiya jidka inuu xiran yahay istaag ma garanayo oo mooto kale ayuu ku hortagayaa markaas buu jidka sidaas buu jaam ku noqonayaa bis. waa wax yar oo isha haddana laga shaqeeyo ciidanka amniga booliiska ka shaqeeyo isla markiina la furo waay. hardan suuqaadka ka dhex aloosan bajaaj iyo BL ayaa ah mid BL-ka hadda shaqeeya uu kaga guuleystay gawaadhidii hore u qaadi jirtay dadweynaha iskaga kala goosha degmooyinka gobolkan. hore ayaa loo yiri gar laba nin kama wada qosliso. waxaa la dhur sugayaa halka uu ku dambeyn doono baratankan iyo cidda ku guuleysan doonta BL iyo bajaaj. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeenan. haddii ay tahay aragtida janaalkeena markii kuugu horeysay fadlan subscribe inoo saar gambaleelka furo noqo qofka ugu horeeya hela warbixinada iyo barnaamijyada xiisaha leh ee aanu barteena soo gelino.